gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Baasha Maxamed Faarax oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool isagoona sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Baasha Maxamed Faarax in uu dagaalkaasi ka bilaabay daandaansi ay sameeyeen ciidamada maamul goboleedka Puntland balse ay ka jawaabeen ciidamada Somaliland ciidamada Somaliland shalayto hawshoodii caadiga ahayd ay wateen Tukaraq waxay ka badtay Sool waxay u dhaxaysaa Garowe iyo Sool iyo Laascaanood weli xuduudeennii marka la joogo Tukaraq weli waxay inoo dhimo 45 ilaa 50 aynaan gaarin xuduudeena marka ciidamaduna waxay wadeen hawshoodii caadiga ahayd waxaas soo weeraray ciidamada Puntland taasina waxay tusaa daandaansi iyo dagaal inay rabaan waxay tusayeen waxa loo yeedoon kale waxa joogay Garowe madaxweynaha federaalka ayaa joogay marka si ay u muujiyaan inay dalkan iyagu ka taliyaan waxa weeye dagaalkaasi soo qaaday waxaan u sheegnaa shacabka Somaliland dhulkaas inuu yahay dhul Somaliland haddii ay sii socoto in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka waxaan kaloo hambalyeynaa ciidanka Somaliland oo waajibaadkiisa gutay oo dhulkii weli xuduudii wax badan u hareen laakiin maalinba meel ku sii turkaya marka intaasaan maadaama wax dhaceen waxaanu garanay golayaasha in lagu wargeliyo wixii hadba dhaca marka intaas oo aad golaha waxaan maanta u xidhnaa geesta kalena Baasha Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland waxa uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ay faragelin baan ku hayeen deegaano ka tirsan Somaliland balse aanay dawladda Somaliland ogolaan doonin waa sida hadalka uu dhigay in la soo farageliyo deegaanadeeda waxa jiray muddooyinka dambe dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxay wadeen faragelin iyo daandaansi dibadaabyooyin ay ka dhex wadaan labada dal Somaliland iyo Soomaaliya taasoo ay wadaan xaalad abuur iyo qalalaase ay ka ridaan waxay yeelaysaa nabadgelyada labada dal ee walaalaha Soomaaliya iyo Somaliland dawladda Soomaaliya waxay cadaysatay inay ixtiraami weydo heshiisyadii muddada socday ee labada dal ku wada heshiiyeen inay hawada qaybsadaan ama wadajir u maamulaan wadaagtiina waxay yiraahdeen hawadii anaga la wareegnay hawadeena inaga leh iyagu male waxa kale oo ogtiin baarlamaanka bisha todobadeedii markii doorashada aynu ku jiray maamul goboleedka Puntland baarlamaankiisu inuu fariistay qaraarana ka soo saaray inaan doorashadu ka dhicin Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle waxa weeye baarlamaanka uma aanan jawaabin waayo waxaan ka cararaynaa waxa weeye maadaama aynu ku jirno doorasho waxaan ixtiraamanay inaanan qalalaase iyo nabadgelyo ka dhicin Puntland iyo Somaliland waa deris waa dad walaala Somaliland waxay ku mashquulsanayd sidii ay doorasho u geli lahayd laakiin si ay uga faa'iideystaan baarlamaankoodii baa si bareer ah go'aamo uga soo saaray inay suurtaagaan doorashooyinka iyagoo sheeganaya Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle oo ah Somaliland waxa kaloo aad ogtihiin diiwaangelintii inay goobo badan oo Somaliland ay soo weerareen oo sanaaduuq ay qaateen waxa kaloo ogtihiin wasiirka federaalka ee qorsheyntu inuu yimi baran iyo dhahar dhulkaas oo dhan maray meel walba khudbada ka akhriyay dadka tusayay in dadkaasi ay ka tirsan yihiin Soomaaliya waxaas oo dhan waxay ugu jeedeen waxa weeye inay waxa la socday wasiirka amniga ee maamul goboleedka Puntland xildhibaano federaalka xildhibaano Puntland ka socday marka waxay ku soo xadgudbeen xuduudda Soomaaliya